إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu qaadanaynaa cibaadooyinka kolba qayb ka mid ah oo aayaduhu ay nooga waramayaan fi suurati al-baqara. cibaadadii soomka ilaahay uu soo faray, cibaadadii xajka, cibaadadii jihaadka, cibaadadii lagu cibaadeysanayay in xaas iyo qoys iyo usro la sameeyo, cibaadadii cadiyada iyo sadaqada aynu maraynaa oo aayaadkan soo socda ay ka waramayaan. idan waxaad arkaysaa diinta islaamku waa nidaamul xayaa, waa nidaamkii nolosha meelnaba lama rabo inay cibaado ka baxdo. ilaa 14 aayadood oo isdaba yaallo soo socda ayaa waxay ka waramayaan cibaadada cadiyada ama deeqsinimada iyo waxbixinta ama infaaq iyo maalka ama faral ha ahaado ama sunni labadaba. markaynu ta'ammul ku sameeyno fi hadhihi al-ayat shan arrimood baa inooga muuqanaya. ta horeysa waxa weeye qiimaha iyo tayada ay leedahay waxbixinta ilaahay wax la amaahinayo subxaanahu wa tacaala. waxa ilaahay uu ku horeysiinayaa bixinta inuu wax bixinayno ilaahay amaahino. dee ilaahay weynaa waxa loo dhiibtay inuu yahay wax weyn. markaasaa wuxuu tilmaamayaa kamathali xabbatin أنبتت 100 حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وحبت soo saartay naas 100 midh 700 midh intuu doonana ilaahay waa u sii laablaabaya qofku doono. kamathali jannatin birabwa mar kalena ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inuu waxaynu ilaahay siinayno amaahinaynaa inuu la mid yahay beer meel wanaagsan ku taala oo aan ba'aynin oo waqti walba midhaha soo saaraysa. idan waxaynu ilaahay amaahinayno u dhiibanaynaa isagoo marka hore bayna siiyey inuu yahay wax aad u qaali ah oo qiimo badan bay aayaadkuna jeclaysiinayaan. marka waa mudaacafatu sadaqaat wa qiimatu sadaqa ayaa nasku ina baraya ilaahay noo horeysiiyey subxaanahu wa tacaala si qiimaha iyo tayadaasi ay u jirto. hunaaka aadaab lisadaqa, sadaqadii inay aadaab leedahay baa aayaduhu ayna barayaan aynu dhegaysan doonaa insha allah. aadaabtaas ilaa 4-5 meelahaasay noqonayaan. waxaa ka mid ah aadaabtaas cadamu اlأdaa wاlman fi الsadaqa. laa tubdiluu sadaqaatikum biاlmani wاlأdaa kaaladii yunfiqu maalahu ri'aaءa الnaas. sadaqadiina ha ku burinina baa ilaahay u leeyahy inaad gallad sheegataan oo qofku uu sheego wixii uu bixiyey ama uu dhibaato ka dabageeyo caam iyo khaas mid kastaba ha ahaato ama uu istusnimo raaciyo. saddexdaa arrimoodba waa adab darro la raacin kara sadaqadii. marka waxaagu inuu daacad ahaado, adiga ilaahay idinka dhaxeeyo, isla markaana aada u aragta inaad adigu uga baahan tahay halkaad ku bixinaysay ciddaad siinayso. haddaad miskiin siinayso ama jiho khayriya ku bixinayso baahida halkaasi u qabta mid ka badan baad adigu u qabta adaa danaysanaya. adaabta afraad waxa weeyaan saddexba halkaa ilaahay uu ku sheegay waxaynu bixinaynaa inuu noqdo wax tayo leh oo aan ilaahay la caabaynin oo wax liita aan laga horgeynin rabbi subxaanahu wa tacaala. anfiquu min طayibaati maa kasabtum buu ilaahay leeyahy waxaa shaqayseen kiisa wanaagsan bixiya. wa mima akhrajnaa lakum min alard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. بتسيدوا إلهي إنه الله وين يقانا بخيل كل هاي يقانا سبحانه وتعالى. واحد بحنيسا وحو ناكسنها هذا بولاي ووح اللي تها بحننا وإذن كبها الدين لا إذن سيا أيضا قادتين إن إسكو قبضوا موياني وحن لنا وحن ما دون إننا والله إن إسكو قبضوا باكو قاتبين لنا إن إسكو قبض كين يبوا إلهي الشاقة. marka wax idinkoo indhaha isku haya mooyadaan saani u qaadateen dadkana ha ku caabaynina baa ilaahay. marka wixii wanaagsan ayaa wax laga bixiyaa waa aadaabtiba ka mid. aadaabta waxa ka mid ah waxaad bixinaysaa inuu yahay xalaal ah oo isaguna waa shay dayiba. laa yastawi alkhabiith wa tayyib, waxa wanaagsan iyo waxa xumi ma sinna. marka shayga aad bixinaysaa hadduu xaaraan noqdo laga aqbali maayo. in allaha tayyibun walaa yaqbalu ilaa tayiban. ilaahay u xalaalun buu aqbala. haddaad weligaa iyo allaha u xaaraanahoo badan bixiso kuuma tirsana
hantidii ummadood ka qaaday oo u noqotay un weeyi adiguna dembi unbaad ku lahayd deeqduna dadkii lahaa bay gaadhay adaabta lixaad waxa weeye ataxaruru min waswaasi shayطaan shaydaanka iyo waswaaskiisa inaad ka xorowdo garbuhu ku haystaa yabaal buu kugu abuurayaa wax badan buu kuu sheegayaa markaad istiraahdo waxbix الشayطaanu yacidukum الfaqr wayaأmurukum biاlfaxshaa faxshaaga culimadu waxay ku fasireen bakhaylnimada xalla wixii xun buu ku farayaa bakhaylnimuu ku farayaa iska haysa buu leeyahy intan kumaba dheera halkan ku farsamee marka lixdaa arrimoodba waxay ka mid yihiin min aadaab الصadaqa qodobka saddexaad waxa weeye kayfiyatu adaa'i haadihi اlcibaada cibaadadan infaaqa habkaynu gudanaynaa ma si sira baynu gudanaa mise si caadahoo muuqata labada way noo bannaayin ilaahay baa wuxu uhi in tubdu sadaqaati fanicim maa hiya wain tukfuuha watu'tuuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum labadaba laakiin culimadu waxay leeyiin qeybta dambe ilaahay wuxuu raaciyey faqiir buu raaciyey ama fuqaradii sadaqada haddaa muujisaan way idin fiicanta haddaa qarisaan oo fuqaradii iyo dadka baahan siisaanna way khayr badantay marka halkaa dambe waxaa laga fahmayaa marka faqiir iyo qof la siinayana qarintay ku fiicanta marka jiha caama iyo danguud lagu bixinayo on qofkii loogu madno sheeganaynina muujintay ku fiicantay sidii nebiguba calayhi salaatu wasalaam intuu mimbarka istaaga jihaadka iyo danaha guud uu u yaboohin jiree dadku ay ugu tartami jireen laakiin qof damqanayo oo dadka iska ilaalinaya marka wax la siinayo in loo laabo ayaa ku fiican waa kayfiyatu adaa'i hadihi alcibaada labada siyoodba way bannaayin qodobka afraad ee aayaadku ay ka warramayaan waxa weeyaan masaariifu haadihi الsadaqaat waxaanaynu bixinayna meelaha lagu bixinayo waa likulli muxtaaj meel kastoo baahan baa lagu bixinaya qof kastoo baahan ama gaal ha ahaado ama islaam ama caasi ha ahaado ama caabid qofku hadduu baahan yahay gaajo lagu eegi maayo ilaa muxaaribka mooyaane qofka inala dagaalamaya cadowga mooyaane ciddii kale baahanba xataa alxayawaanaat waa la siinaya waa loogu deeqaya ilaahay baa yihi laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa aayaadkay ku jirta adiga kuma saara inaad hanuunisee wixii aad helayso unu dhiib yahuudiga dawarsanaya iyo nasraaniga iyo faqiirka iyo cid walba waa la siinaya waxba laga yaabaa in lagu soo islaamiyo qalbigooda lagu qabto lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili اllah dadka iyaguna jihaadka ku kooban ee cilmiga baranaya ee khayrka u heelan iyagana ha la siiyo marka labada aayadood ee isdaba taagana waxay tilmaamayaan jihooyinka lagu bixinayo deeqda oo dadka muslimiintu waxyaabaha islaamkooda ku baahiyaan buu ka mid yahay deeqda iyo dadaalka ay ku bixinayaan xagga cadiyada sida maanta ay hay-adaha tansiirka iyo tabshiirka ama mishanka ee diinta kiristanka faafinaya dadka quluubtooda usoo jiitaan oo ay wax ugu fidiyaan halkaa waxaa ku jira hay-adaha muslimiinta iyo tujaarta muslimiinta sekadana qayb baaba loo baasgaraynayo dee la siiyeyba oo qur-aanku siiyey dadkaa mualafatu quluubum la yidhaha qalbigooda lasoo dhaweynayo qodobka u dambeeya shanaad waxa weeyaan takhiiru haadihi sadaqaat deeqdaa aynu bixinaynaa inaanay yaraanin xoolaha dad baa inala le waa laynaga dhexlayaa dadkaa inaynu la boobno inta arrinku gacanta kugu jiro ee aan lagaa dhaxlin ee aanad marti ku noqon eena dhulka hoos marin maantaad joogtaaye la boob dadka dhaxal kaloo ka gaadhsii الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آيات دودا بيس dadka xoolooda bixinaya baa ilaahay habeenkii maalinba fi layl wa nahaar wa sirran wa alaniya habeenkii maalinta waa bixinayaan si hoose iyo si qarsoon iyo si muuqata labada oo bixinayaan abaalkoodu ilaahay agtiisa u yaala waa awliye ilaahay oo cabsi iyo muruga midna ba saaran marka aayadda u dambaysa waxay tilmaamaysaa maalka aynu bixinayna inaanu inagu yaraanin ee sidaad ugu raaxaysanayso ee adduunka aad u bixinayso si ka badan waa inaad raaxada aakhirana ugu raadisaa idan shanta mowduuc baynu ku soo ururin karnaa 14 aayadood qaybaha ay ka waramayaan ee infaaqan markaynu si guud u eegno aynu ta'amulaad ku samayno marka cibaadadeena iyo cilmiga aynu qaadanayno waa inaynu ku lamaanaynaa oo aynu ku lifaaqnaa hadiyada iyo deeqda iyada oo aanay shardi ahayn qofka wax bixinaya inuu wax badan hayo dadka qaarkood waxa laga yaabaa marka la yiraahdo wax bixin inuu isdhaafiyo yiraahdo adiga maaha ka loo jeedaa waa tijaarta iyo kuwa wax badan ee burburanaya sidaa u fahmin
nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam sabaqa dirhamun ب100,000 dirham gini baa ka dheereeya 100,000 oo gini ginigaas siduu uga dheereeya waxa weeye qof baa haysta 2 gini mid buu bixiyey midna masaariif buu la haray qofna waxa laga yaabaa malaayiin buu haystaa 100,000 buu bixiyey kan labadii uu haystay mid bixiyey 50% buu bixiyey kan kalena waxa laga yaabaa 100,000 inay noqdaan dee 1% 100 hal inay noqdaan marka waxa laga eegayaa qadarku xoorihiisa ka bixiyey ayaa laga eegayaa 100 kala badha marka kaasaa ka dheereeyay buu leeyahay ka kale waxa uu bixiyey kaasaa ka badiyay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay u fahamsaneen qofba waxa uu wuxuu hayaa inuu wax ka bixiyo inta halka istaagado waxba la siiyay waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam markii lagu dhameystiray ayuu isu diyaariyay qaybtan hadaba ana intaan bixinaya soo inta la ima siinin aniguna intaan haatan bixinaya war iska haysabaa imikaaba lagu ururiyay bal ku asturna oo naga joog marka sidaasay tahay dhalinyarada iyo dadka aan waxba hayn qof waliba wixii uu helayo inuu wax ka bixiyo noocyada kala duwan ee Ilaahay ugu deeqay waana shukriga la xusayo quraanku aad inoogu waaniyo qayb kamida weeye inaad ficil iyo qowl kula timaado oo shukrigu maaha alxamdulillah iyo wardigo kaliya aad badisee waa shukriga gacanta aad muhiima iyo shukriga qowlka iyo shukriga ficilka icmalu ala daawud shukran amal baa la doonayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته